السلام عليكم أغيارتا كحران دير نيوز ميل والباها جوكتان halkiina ayaad ku salaamantihiin salaan kadib kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo haatan booqasho ku marayo dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa mar kale ka hadlay arrimo ku aadan dagaalka ka dhanka ah ee Al-Shabaab. Xamse Cabdi Barre ayaa shacabka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ka dalbaday inay ku soo biiraan dagaalka isla markaana ay qayb ka noqdaan howlgallada ka socda dalka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay tahay cadowga ummadda Soomaaliyeed loona baahan yahay in loo midoobo si looga adkaado. Waxaan u nimid meeshan inaan idin sheegno in la idin baahan yahay in cadowgaas aan naga caawisaan naga kaalmaysaan sidaad sheegteen cadow waxaa jira aan wada leenahay oo runtii ah argagixisada ee dhibaatada farada badan ummadda Soomaaliyeed ku hayo muddada dheer idinkana waa dhaweyd idin soo hujuumay ayuu jira Ra'iisul Wasaaraha. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha ayaa dardaaran culus u jeediyay dadka shacabka ah wuxuuna ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda, midnimada iyo horumarka deegaanka. Waxaan ku talinayaa inaad midowdaan ood walaalowdaan oo aad xukuumad iyo shacaba gacmaha isqabsataan ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Hadalkan ayaa ku soo aadaya ayada oo dhawaan ay toos isku wajaheen ciidamada Liu Police ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo Al-Shabaab oo weerar ku qaaday qaybo ka mid ah dhulkaasi kadib markii ay ka tallaabeen xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Ra'iisul Wasaare Xamse waxa uu nimid dowlad deegaanka in la idin baahan yahay oo aan naga caawisaan dagaalka Al-Shabaab.